Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ku soo dhawaada muuqaal kale oo kooban oo aynu maanta kaga hadli doono maalinta loogu magac daray Black Friday amaba Jimcihii Madooba. Maalintani waa maalin inta badan taariikh kale wadamada reer galbeedka. Waxaana la sheegaa maalintan inay tahay maalinta dadka ganacsatada ah gaar ahaan dadka iibiya qalabka digitalka ah amaba elektrooniga ahi ay faa'iidaan sanadka oo dhan. Haddaba qaabkee ayay u faa'iidaan? maalintan mar walba waxay noqotaa dhamaadka bisha November. Waxay ku beegan tahay hadda 29ka bisha November. Dad badani waxay u diyaar garoowayaan maalintan inay wax iibsadaan. Ganacsatadu inta badan waxay soo jabiyaan alaabtooda qaar badan oo kamid ah, halka kuwa badan oo kalena ay maalintani ka faa'iideystaan fursadda dadka ay uga faa'iideysanayaan. Waxa kamid ah waxay ku soo qoraan in ay jabiyeen alaabtoodii, laakiinse qofka aan ogeynin qiimaha ay alaabtani ahayd laga yaabaa inuu iska iibsado isagaan u fiirsanin. Haddana way jiraan meherado badan oo wax soo jabiya. Waxaynu eegi doonaa bal qaabka ay meheradu wax u faa'iidaan. Tusaale ahaan, marka ay meheradu iibiso 100 xabo oo TV-yada la daawado ah oo ay qiimihii hore wax yar ka dhigtay, waxa ay faa'iideysaa wax badan. Taasina waa ta ku tusaysaa in maalintani ay dad badan wax iibsadaan. Sidoo kale, dalalka reer galbeedka amaba dunida Kiristaanka waxa uu soo dhow ciidooda loo yaqaano Christmaska, taasi oo ay isugu hadiyadeeyaan hadiyado kala duwan. Dadka wax u hadiyadeynaya ama asxaabtooda iyo kuwa ay jecel yihiin iyo ehelkooda hadiyadaha u diraya bishan November aynu ku jirno dhammaadkeeda ayaa waxay ka sii faa'iideystaan inay sii iibsadaan qiimo dhimista waxyaabaha elektrooniga lagu sameeyay si hadhow ay hadiyadaha ugu diraan ehelkooda iyo asxaabtooda. Haddaba Black Friday lafteeda dib ugu soo noqon doonaa. Saamaynta ay dadka ku yeelataa waxa weeye in badan dadku alaabta isagoo aan xitaa dooninin in dad badan ay iibsadaan, halka kuwa kalena markaasi ay u fiirsadaan qiimaha shaygan la siinayo inuu ahaa qiimihiisii hore oo lagu soo dhajiyay calaamad cas oo lagu soo dhajiyay kolba waddanka joogta ay ku xiran tahay iyadoo loo isticmaalo discount-ka ama qiimo dhimista. Balse ugu dambeyn waxaan ku soo koobi doonaa in maalinta Black Friday-gu ay tahay maalin la kala macaasho oo dadka ganacsatada ay ka macaashaan dadka wax iibsanaya, halka dadka wax iibsanaya qaarkoodna ay fursado u helaan in alaabo ay doonayeen oo qiimihii hore qiimo ka yar la siinayo ay faa'iideystaan ama ka iibsadaan. Waxaana inta badan la sheegaa isku celcelis si kastoo alaabta loo soo jabiyo in qiimaha ugu jaban ama la soo jabiyaa qiimaha ay tahay 30%. Intaasi ayaan ku soo koobaynaa muuqaalka kooban ee ku eegaynay waxa uu yahay Black Friday iyo waliba sida ay dadku uga faa'iideystaan. Fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkan subscribe.